Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan maanta halkan videogan igu soo bandhigaynaa taariikhda gacan ku rimiska ama been ku salaysan been abuurka ee ninka la yidhaahdo Allah u naxariistee Muuse Ismaaciil Buux, dadkuna u yaqaanaan Sheekh Muuse oo kasoo jeeda beesha Ciise, weliba reerka la yidhaahdo Mamaasan ee Jufada reer Cigaal, dhashay deegaanka Guban ama magaalada Geerisa agagaarkeega. haddaba qaybtan koowaad waxaan kaga hadlaynaa sidee buu ku yimiday Sheekh Muuse iyo arrinkan Sheekh Muuse sidee buu ku bilaamay. wuxuu ku bilaamay, waad ogtihiin adduunka waxa ka dhacay dagaalkii koowaad ee adduunka dhacay, ood ogtihiin wuxuu dhacay 1914 ilaa 1918 tareenka Jabuuti ka baxay ilaa Itoobiya waxa la sameeyay 1897 ilaa 1917 yaa la dhameeyay. waxa haddaba dagaalka koowaad ee adduunka galay sidaad ogtihiin rag badan oo beesha Ciise ka soo jeeda ama Soomaalida ka soo jeeda, si waliba beesha Ciise iyo maxayday Gadabursiga iyo Isaaqa iyaga oo kamid noqday ciidankii Ingiriiska iyo kii Faransiiska dagaalkii koowaad ee adduunka ka qayb galay oo Yurubada tagay. odayadaas waxa ku jiray ka qayb galay dagaalka koowaad, ragga ka qayb galay waxa ku jiray nin la oranayay Xaaji Lacagdoon. ninkaasi wuxuu ahaa nin u dhashay beesha Ciise, wuxuuna ahaa reer kale Baafuur laba ayaa lagu tilmaamaa. waqtiyada aad ogtihiin sidaad ogtihiin markii dagaalkii labaad adduunka laga soo noqday 1930 meelahaas ee dadkii ka qayb galay ku soo noqdeen deegaanadooda. waxa haddana kadib dhowr sano kadib bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunka, bilaabmay 39 ilaa 40 marka waxa ku dhacay gumaysigu aad buu waqtiga u liitay oo meelihii adduunku ka fadhiyay aad buu liitay. marka wuxuu samaystay dad la shaqeeya oo kala shaqeeya deegaanadaasi arrimaha ka socda iyo kacdoonada ka socda. waqtiyadana waxa bilaabmay xornimo u dirirkii oo raggii xornimada u dirirayay baa bilaabay ayaa ka bilaabmay dhulku gumaysanayay gaalku. talabaad sidaad ogtihiin Jabuuti marka laga baxo Cali Sabiix ilaa iyo Awaash waxay ahayd deegaankaasi Ciisaha cidba ma maamuli jirin ee reerka Ciisayga ismaamuli jiray oo Faransiisna ma maamulaynin. dowladii Amxaarada ee Hayle Salaase uu madaxa u ahaa boqorka u ahaana ma maamulaynin oo ciidan ka socda Amxaarada dhulkaasi ma joogeen, dhul free uu ahaa oo madax bannaan bay ahayd. tareenka maraya dhulkaasi deegaanka Ciisahana Ciisu waxay ka qaadi jireen maxayday cashuur ama taqsiir bay ka qaadayeen. gumaysigu wuxuu siin jiray deegaanadaas hayday raashin sida sonkorta, sida timirta iyo wax la halmaaluu siin jiray, iyagaana ilaalin jiray nabadda hayni jiray oo gandaha iyo ugaaska u qaabilsanaa deegaankaas. gaalkii quraata wuxuu fadhin jiray gumaysigu bas magaalada Dirdhabo quraatu fadhinayay, Faransiisku fadhinayay, kuwaana waxay shaqaale tareenka ka shaqeeya. marka gaalkii marma uu arkay inuu awoodiisii gumaysigu ay yaraatay oo dagaalkii labaad adduunku uu liciifiyey, uu meeluhu joogay uu aad ugu liciifay, wuxuu sameeyey waxa kamid ah meeluhu joogay Jabuuti. marka wuxuu la heshiiyey boqorkii Hayle Salaase si ciidanka Amxaarada ay dhulkan Ciisaha u yimaadaan, ay u qabsadaan, ay kamid noqoto deegaan ay maamulaan Amxaaradu. markaas dad wuxuu samaystay gumaysigu kala shaqeeya arrinta oo ogaada dhaqdhaqaaqa iyo halkay u jeedaan iyo waxay ku tashanayaan Ciisuhu si loo ogaado loo jaajuuso ayuu dad sameeyay. qandaraaskaasi waxa qaatay odaga la yiraahdo Xaaji Lacagdoon. odaygaas oo hore inaga soo hadlay oo Mamaasana oo maxayday cawla kiisa garanaya. odaygaasi maalgelin xoog la siiyay, lacag uu arrinta ku qabtaa la siiyay. wuxuu degay magaalada Jigjigu degay si Ciisuhu uga shikinin lacag haysta oo mar qulaata uu jawaano lacag cirka uga soo daateen waa laga shikii lahaa si Ciisuhu uga shikinin magaalada Jigjiga ayuu degay. odaygaasi wuxuu ka furay xer ganacsi buu ka furay, lacagtii la siiyay. wuxuu markaasi samaystay rag la shaqeeya, raggii la shaqeynayay uu samaystay arrintan kala shaqeyn lahaa wuxuu ahaa hayday oday uu la baxay Sheekh Ibraahim oo dhalay General Zakariya ninkan la yiraahdo dhalay iminka ciidanka Jabuuti haysta, odaga la yiraahdo haysta. odagii dhalay ayaa kamid ah raggii uu samaystay la shaqeynayay. waxa kamid ahaa Geela Betel, waxa kamid ahaa maxayday Sheekh Muuse kamid ahaa dadkii la shaqeynayay uu samaystay ee arrimaha kala shaqeynayay. marka fikirku wuxuu ahaa sideen Ciise ku dhex degnaa aan ku dhex joognaa oo warkana kaga heli karnaa. Ciisuhu markaasi waxay aad u xusi jireen maxayday Sheekh Jilaani oo aniga iska garanaya dumarka baadiyu awrka waxay ku kacsan jireen Sheekh Jilaani iyo ku kacsan jireen. labada sheekh ee aad u xusi jireen dadku waxay Sheekh Jilaani iyo Sheekh Ciise.
markaas waxaa la yidhi dadka maqaamka iyo sheekh aanu marno raggii waxay la baxeen muxuu ahaa sheekh bay la baxeen sheekh ibraahim baa lala baxay sheekh muuse lala baxay sheekh geelabetel baa lala baxay sheekh xuseen baa lala baxay magacaynkaasay la baxeen marka haddaba kuwa kale aan ka nimaadnay waxa muhiim innaga noo ah waa sheekh haddaba qaybtan labaad ee arrinta sheekh muuse waxa weeyaan xaaji lacag baa yaa shaqo geliya sheekh muuse waxa weeyaan sida la sheego wuxuu yimiday 1937 magaalada Ayshaca isagoo yimiday kadibna dadku waxay ku sheegaan inuu ka soo bartay cilmiga falakiga magaalada Goojaam la yiraahdo ku taal dhulka Amxaarada inuu ka soo bartay cilmiga falakiga taas oo meeshaasi taariikh weyn ay ku leedahay xagga barashada iskoolada waxa jiray 1838 buugaan ay qoreen ninka la yiraahdo M Tanson iyo Faransiiska ay nin kale labaad ay qoreen buugaanta waxay ku sheegayaan buuga ay qoreen waxay ku sheegayaan inuu meeshaasi ku yaalaan meelo diimo badan laga isticmaalo gobolka ayna ku ag yaalaan iskoolo waaweyn oo falakiga lagu barto Sheekh Muuse ninkii wuxuu noqday ugu qandaraas weynaa ee maxay uu hirgeliyo xaaji lacag doon qaybta ugu weyn ka qaatay falak inka sababtoo ah isagu labadan kuwan kale ee geelabetelka iyo Sheekh Ibraahimka wuxuu dheeraa falakigu yaqaanay marka isaga waxa loo xil saaray inuu ka bilaabo inta xundurta ama caloosha ciisuhu dago ee taxdiidka maxay magaalooyinka ku taxan xadiidka ina la dejo oo inta isagu xil sarnaado galbeed iyo Djibouti baa loo xil saaray Sheekh Muuse markaasi wuxuu sameeyay wuxuu degay magaalada Ayshaca wuxuu bilaabay inuu sameeyo falakiga inuu markuu dagaal galo ciisuhu sidoo ku hantiyo qalbiga ciisaha wuxuu sameeyay markuu ciisuhu dagaal galay canfarta ay isdirrayaan ayuu rogayay falakigiisii markuu rogo wuxuu arkayay sidii televisionka ayaa loo tusayay ciisihii oo dagaalamaya halkii ka dagaalamayaan iyo sida uga guuleysanayeen canfartii markaas buu oranayay ciisaha buuraanteedii baan diray ama maxay ahayd jawaabiirteedii baan diro way guuleysanayaan ciisuhu iyo waa ku halka ku jabiya canfartii imika oo u diray kadib waagi hore ma jirin teknolojiyadan iyo warkan degdeg ah ciisuhu waxay maqli jireen 2-3 kadib inuu ciisuhu guuleystay oo canfartii kaga guuleystay magaalada caynka uu sida uga guuleystay marka dadkii waxa laga dhaadhiciyay inuu ninkan yahay sheekh wax dira oo isagu la dagaalamay halka aad ku maqasheen weeyaan sheekada la oranayo maxay ahayd Sheekh Muuse iyo canfarta jabiyo la dagaalamay la oranayo waa falakiga uu ku daawanayay dagaal ku daawanayay marka taa ka soo gudubtiin Sheekh Muuse wuxuu ahaa nin sigaarka karaavenka aad u jeclaa ma garanaya inuu sheekh sigaarka karaavenka cabba oo maxay balwad leh oo sheekhna sheeganaya waa wax cajiiba taasina calaamadana uu lahaa gaarka marka Sheekh Muuse maalgelinta uu ka helay dawladda Faransiiska iyo maxay xamashidu waxay ku shubi jireen xaaji lacagna Sheekh Muuse ku soo shubi jiray oo jigjiga jooga ayaa ku soo shubi jiray Sheekh Muuse Ayshaca ilaa dirraba jooga markaas inta ka shaqeynaya maqaamo ka furay dhulka maqaamadaasi waxay haydeen laamo sirdoona oo lagu ogaanayo dhaqdhaqaaqa ciisaha lagu ogaanayo waxa laga furay maqaamadaas magaalooyinka ugu waaweyn baa nin sheegay sida Ayshaca Hadagaala Mille Waaruf Meete Shiniile Dirdhaba maxay Cali Sabiix Hol maxay Djibouti oo 3 meelooda kaarteseed xaafadda la yiraahdo 7 balbala iyo maxay duuda maqaamadaasi waa laamo sirdoon oo wararka iyo la soconayeen maxay ahayd ciisaha iyo dhaqaaqa ciisaha la soconayeen waxayna wararkaasi u tabin jireen Amxaarada iyo Faransiiska haddaba waad ogtihiin Dirdhabe ilaa Cali Sabiix ilaa iyo maxay ahayd awaasha Amxaara ma joogeen dhulkaasi ciidan Amxaara waxay yimaadeen Amxaarada dhulka ciisaha 1954 waxaana ka qayb galay arinta ay meeshadeeda Geelabetel Sheekh Muuse iyo odaga xaaji lacag baa ka dambeeyay oo ka qayb galay si ay xamashada dhulkan u yimaadaan ciisa u yimaadaan waqtiga 1954 bay yimaadeen markay yimaadeen xamashadu waxa u timiday inuu nidaamkan soo socday ee Soomaali weynta ee uu galbeedka ciisuhu diyaar u ahaa inuu ka qayb galo ay wadeen Maxamuud Xarbi iyo Boori inuu laga hortago marka waxa dhacay waad ogtiin Ayshaca inuu yimid nin warqad siday oo ururka Iswaailta oo u waday ciisaha maxay galbeedka inuu Ayshaca la kulmay faamigan maxay Caynaashe nin kamida oo reegel batahalkauna ninkaasi inuu Amxaaradii gaarsiiyay uu tusay taana waxay dhacday waa 1960 xasuuqi Ayshaca waa markay Dirdhaba yimaadeen Amxaarada 1954 bilood kadib 6 sano kadib 5 sano kadib iyo dhacday arintaasi markaasi fikirkaasi wuxuu ahaa fikir lagaga hortaysa dawladda Soomaaliya ay soo gaarin buu ahaa marka taas waxay muujinaysaa Sheekh Muuse iyo odaga xaaji lacag
iyo Sheekh Ibrahim iyo Geela Betel iyo Caynaashe inay wada ahaayeen jaajuus u shaqeeya Faransiiska iyo Amxaarada kuna caawiyeen sidii dhulkan u qabsan lahaayeen uu degan yahay Ciise uu degan yahay galbeedka. haddaba qaybtan saddexaad ee taariikhda Sheekh Muuse siduu maqaamyada u furay iyo maqaamyada maxaa ka socon jiray Sheekh Muuse. maqaamyada Sheekh Muuse waxa lagu furay badankooda qaar badan waxa lagu dajiyay xoog oo Amxaaradii baa ku dajisay xoog. waxa kamid ah Waaruf magaalada la yiraahdo waad wareysan kartiin waxa ka dhacay dagaal magaaladaas waxa ku awleeyay maqaam laba maqaam baa ku oolayay mid baa aad waliba u shidnaan jiray wuxuu ahaa maxay hayday Sheekh Jilani maqaamkiisii waxana maqaamkaas aad ugu badnaa oo shidi jiray rag walaal doona iyo Saacad Muuse maqaamkaasi wuxuu diiday inuu soo dago Sheekh Muuse maqaamkiisina la soo dajuu diiday markuu diiday Sheekh Muuse wuxuu kula noqday dacwadii Amxaaradii ba qasab ku dajisay oo dagaal baa ka dhacay waa la isku laayay dhaawac badan baa lagu sheegay meeshaas qasab baa lagu dajiyo ciidankii Amxaarada ayaa qasab ku dajiyay maqaamkii Sheekh Muuse taaba ni daliil inuu maqaamyadan ay yihiin sirdoon ay ku shaqaysanaysay Amxaaradu iyo Faransiisku. marka maqaamyada Sheekh Muuse lagu leeyahay maqaam diin lagu qabtaa mise waa wax kala lagu qabtaa taana waxaan cadaynaysaa maqaamyada Sheekh Muuse calaamadaha ku arkaysiin maqaamyada dhan oo Djibouti ku yaala hadaan eegno waxaan u maray oo indhahayga ku arkoon galay maqaamka maxay hayday Sheekh Gabood odayga reer Geediye Sheekh Gabood loo oranayay maqaamka Sheekh Cusmaan maxay hayday odayga Furlabeen Misame maqaamkii Boode buurta Cartadooda odaygooda xogub maqaamkii reer Galaanha odayga kale maxay hayday muxuu maqaamkii Rufaaci guudka ku yaala maqaamkii Dandaawi maqaamo badan oo caynkaas aan galay maqaamadaasi waxaan ku arkay maxay kutub baa dhaxtaala markaad gashido miiska ka arkaysaa waxaad arkaysaa salaadu markay gaadhay in salaadii loo kacayo la tukanayo waxaad arkaysaa in salawaadkii nabiga lagu qaadayo in la ducaynayo waxyaabo diinta waafaqsan baad ugu tagaysaa. haddaba maqaamada Sheekh Muuse muxuu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay maqaamadaasi maqaamada Sheekh Muuse dad gashid kitaab ma yaalo salaad loo makaco waa ka mamnuuc labadaaba talabaad dumar iyo rag baa isdhex fadhiya dhinacana isku haya jilibkan isa saaraya oo bowdada isa saaraya waxana maqaamadaasi badamka laga tuwaa gabalku markuu dhaco baa la bilaabaa in la tumo oo maqaamkaasi music laga tumo waxa la dumar iyo rag baa is wada ruuxa habeenkii marka la daalana halka baa la wada seexdaa ciyaal badan oo waxa ku dhasheen aabalahayn oo meher ku dhalan baa ku dhashay maqaamada ciyaalkii Sheekh Muuse la qoraa waxa waliba cajiib ah maxay hayday ka arkay maqaamka Sheekh Muuse ee kaarteseed ku yaalayay musiga waxa la fushidaa maxay hayday leyrka nooca sida maxay hayday night clubada ama makhbaaradaha oo kale lagu ciyaarayo oo kale habeenkii nagta dhexe dadku kama seexanayn oo idaab ma jirin xaq dhowrna ma jirin taasna waa wax diinta ka hor imanaysa in dad habeenkii dhitido music tumatid kale yaabka waxa weeyaan maqaamada oo dhan waxa laga dhisaa sheekha loo sameeyay meeshuu ka soo deegaanku ka soo jeedo ama deegaanku ku dhashay ama deegaanku diinta dadka ku baraya ama deegaanku ku geeriyooday maqaamka Sheekh Muuse kuma yaala deegaanku ku dhashay deegaanku ku geeriyooday kuma yaalo deegaanu dad diin ku barayeen kuma yaalo dhulka uu degamo maasanku ee Gaarisa iyo lagu hayay garbadada deegaankaas oo dhan lagama helo maqaam Sheekh Muuse kuma yaala deegaankaas oo dhan bas wuxuu ku yaalaa caloosha dhulkan kale ee Ciisaha Djibouti ka bilow ilaa Hawaash. marka maqaamadaasi ilaamaa imika waxay leeyihiin budget oo dawladdu kharash bay siisaa dawladda Djibouti maqaamida Sheekh Muuse sida loo ogyahay maqaamyada kale wax faran oo dawladdu siisa ma jirto maqaamida Sheekh Muuse lacag dawladda oo keeska madaxtooyada ayaa laga siiyaa shaqaalaha ka shaqeeya iyo dakhli uu ku shaqeeyo maqaamida Sheekh Muuse marka waxa ku muujinaysaa inay maqaamyadaasi yihiin laama sirdoona inay yihiin ta kale waxa ku dheer oo ku cadaynaysa inay maqaamyadaasi maqaamyo ayna ahayn maqaam caadi ah ahayn waxa dhacay mar dhaweyd sanadkan bilowgiisa 2020ka waxa dhacay maqaamka ku yaala Balbala iyo gabadh yar oo Ciise ah oo jaar la ay gashay meeshii xalwad iyo misigii lagu ciyaaray aragtay iyo ka qayb gashay gabadhii sidii maqaamkii ugu dhex jirtay baa la ureeyay odayga aabaheeda baa soo qaatay gabadhii yar markii la ureeyay caloosha loo buuxiyay waa laga dameeyay aqalkiisii baa la soo qaad gabadha guursada buuri haddaanad guursanayna dhaafa buuri gabadheeda ana haysanaya ilmaha dhashan ana korsanaya aqalkiisii baa lagu soo weeraro gabadha anaga la yiro gacan baaba laga jabiyo kooxdii maqaamka soo weerarto qaadatay odaygii wuxuu tagay maxay hayday maxkamadda uu dacwad digu yiri
arrinkan yaa jira maxay ahayd nin xaakin oo maxeerkaad ilaalinaysiin oo raggan baad iga qabanaysiin mise waan dagaalamaa dhagar baan geystaa ninka ciid la yidhaahdo yarka yareen barokireerka ama xaakinka ee ciid la yidhaahdo maasan wuxuu yidhi maqaamkaas waxba kama qaban karno maqaamyadaasi sheekh muuse toos ba ismaaciil umar ugu xidhan yihiin maqaamo aan wax ka qaban karayna maaha waa laamo dowladda ka mid a qaybtan afraad waxa weeyaan sheekh muuse sida dadka looga dhaadhiciyey waxa laga dhigay nin awliyaa oo diiniya taasi waxba kama jiraan weeyaan sheekh muuse wuxuu ahaa nin gobolka goojaam ee amxaarada kusoo bartay falakiga sixirna isticmaalaya si uu dadka u waalaya falaki samaynayey dadka si u waalo ninkaasi waxay isqabteen ninka la yidhaahdo xaaji cumar qayaad la yidhaahdo iyo isqabteen oo ka soo noqday maxaa yeelay maka iyo madiine kusoo bartay diinta ninka reer abiba isku qabteen dirdhabe dadka reer dirdhabe oo dhanna way yaqaanaan markaasi sheekh muuse wuxuu ku geeriyooday iminka waxaa la yidhaahdaa waad maqasheen sheekh muuse uu duulo sidii nebi ciise ayuu samada galo ilaabaa qaaday oo qabuur malaa lagu odhanayaa qabuur uu leeyahay sheekh muuse wuxuu ku aasan yahay goojaam magaalada goojaam wuxuu tegey markuu waqtigiisa soo dhowaaday ayuu ninkii waxbaray u tegey magaalada goojaam buu tegey uu ku aasan yahay bal ila eega videogan dhegeysta ninkaasi amxaarada wuxuu leeyahay dhegeysta oo dhegtiina u riga እዚህ ጎጃም ነው። ከዚህ ላይ የመጣው ሙሳ እስማኤል በዚህ መቃብር ውስጥ ተቀበረ። አንዱ የሶማሌ የኢሳ ጎሳ የሆነው የመጣውም ጠንቋይነትን ለመማር ነው። qaybta shanaad ee taariikhda sheekh muuse waxa dhacay shaqadii uu soo qabtay gaalka faransiiska iyo maxay hayday maxaarihii sheekh muuse iyo geelabatel shaqaday u soo qabteen waxa abaalgud looga dhigay ina xasan guuleed loo qaado xasan guuleed bay u soo bandhigeen gaalka inuu madax ka noqdo Djibouti waad iska ogtiin gaalku markuu wadanku joogo qofkii dabadhilif u ahaa buu taari u dhiibaa wadanka meel kasta gumaysigu joogay faransiisku laakiinse dad badanka wax yaqaano oo administrationka ka soo shaqeynay baa loo dhiibaa xasan guuleed baa markaas ay soo bandhigeen oo loo dhiibay sheekh muuse gabadhiisuna waxay noqotay markii dambe faaliyaha xasan guuleed iyay noqotay oo dadka waxa laga dhaadhicin jiray magaalada oo propaganda loogu sameyn jiray magaalada inay tahay naag diinta ku googo'day oo islaantii caasho boqor Allah u naxariistay bay quraanka bartaa baa la oranayay been weeyaan taasi gabadhaasi waxay faaliyaha iyay ahayd gabadhaasi xasan guuleed bay ahayd oo shaqadii aabaheed bay baratay ee falakiga ahaa halkaas bay ka sii wadaysay sababta uu xasan guuleed ku yimid bay kamid ahayd raggan shaqaday qabteen sheekh muuse iyo gaalka iyo amxaarada u qabteen sababtu ku yimid xasan guuleed iyo kamid ahayd xasan guuleedna waa kaga tagay taladii maxamed ismaaciil umar marka waagi xasan guuleed ilaa iminka waad ogtihiin sheekh ciise wax loo qabto ma jiro sheekh ciise oo dhan wax meel bidid loo qoray iyo dakhli loo qoray dawladdu u qortay ma jirto sheekh Usmaan oo gobonimada u soo dagaalamay dakhli loo qoray ma jiro sheekh Cabdilaahi Boode oo gobonimada u soo dagaalamay maxay dakhli loo qoray ma jiro oo bidid dawladdu ay siiso kharash ay siiso ma jirto sheekh Muuse dawladda Ismaaciil Umar iyo tii xasan guuleed ba kharash madaxtooyada ay ka siin jirtay si ay u sii wadaan shaqadii jaajuusnimada maxay ahayd maqaamadaas ay u sii wadaan wararka iyo maxay ahayd shaqada iyo dhaqdhaqaaqa xagga ka socda beesha ciisana dhexdooda ay u soo gaarsiiyaan ogtiin dadka reer Djibouti waxa la oranayay nin kastaba waxa loo diraa tolkii oo ka soo waramo waxaasi waa been ama qlina maqaamadan iyaan ugu dhex jira oo shaqadooda waday dadka maqaamadan ku dhex jira shaqada waday oo system jaajuusa oo ku xiran laanta jaajuuska ee Djibouti bay markii dambe noqdeen calankan qaadanay shaqadoodiina halkiiba ka sii wadeen markaas waxaan leeyahay dadka reer Djibouti waa inay taasi baaba'daa oo hadda diradaha loo soo xiraa waad salaamantihiin